السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن ونكسن داوضيال ميل والبؤد جوجتان qodobada aad wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida gobolka Wallo ayaa waxa ka bilowday guluf colaadeed oo cusub ayadoo qoomiyada Axmaaradu si isu abaabushay kamiisan culus dagaaladii hore ay la gali jirtay xoogga TPLF sidoo kale jamhadda Axmaarada ee Fana ayaa la soo sheegay halkaasi inay dagaal culus kula gashay maanta xoogga TPLF ayagoo la sheegay halkaasi in laga gacan sareeyo xoogga TPLF halkaana kula kulmayaan caqabad labaad oo dagaal cusub sidoo kale jamhadda Ola ee xoreynta Oromiya ayaa waxay sheegtay dagaal culus ay kula gashay ciidanka federaalka gobolka Shawa inay halkaasi guulo waaweyn ka gaadhay ayadoo sheegtay inay saldhigyo waaweyn oo ciidanka militariga dalka Itoobiya ay gabiyaha cagta marisay qodobada kale wararkeena ku maqli doontaan waxa kamida ciidamada Soomaalida ayaa la sheegayaa inay ku sii qulqulayaan jiida hore ee dagaalka ee gobolka Canfarta ayagoo halkaas loo sii daabulayo ciidamo kala duwan oo ciidanka deegaanka Soomaalida kamida sidoo kale dagaal culus ayaa ilaa wali ka socda magaalada Mille ayay xoogga TPLF ay u maran laayihiin gacanta ku dhigaan magaaladaasi qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa warkeena ku maqli doontaan taariikhdu waxay ku beegan tahay 16 bisha 11 2021 haddaynu guda galno wararkeeni oo faahfaahsan ciidamada Axmaarada ee noocyadooda kala duwan ayaa saaka guluf colaadeed oo cusub waxay ka bilaabeen gobolka Wallo ayadoo xoogga TPLF maalmihii ugu dambeeyay ay ku naaloonayeen gobolka Wallo ayna dagaal culusna kala kulmeen ciidanka federaalka iyo ciidamada kala duwan ee deegaanada dalka Itoobiya xoogga TPLF ayaa maalmihii ugu dambeeyay dagaal culus waxay ka wadeen gobolka Canfarta hase yeeshee saaka jiida cusub ayuu dagaalku ka furmay ciidamada Fana iyo liyu booliska Axmaarada iyo militariga oo isku dhanaha ayaa saaka weerar xooggan oo ciriya dhul waxay ku qaadeen saldhigyo waaweyn ee xoogga TPLF ku lahaayeen gobolka Wallo sida magaalada Desi ee caasimadda gobolka Wallo iyo magaalada ganacsiga Kombolcha iyo deegaanada dhulkaas ku hareeraysan xoogga TPLF ayaa saaka halka culayskii ugu badnaa uu ka soo wajahay ayagoo la arkay diyaaradaha guuxa ka dheereeya oo halkaasi hubka noocyadiisa kala duwan ku garaacaya iyo ciidamada taangiyada iyo hubka noocyadiisa kala duwan ku hubaysan oo halkaasi dagaal xooggan ka wada dagaalka u dhaxeeya xoogga TPLF iyo ciidamada isbahaysiga ayaa la garanayay meesha uu ku dambeeynayo ayagoo xoogga TPLF ay la kulmayaan caqabadii labaad ee dagaalka xoogga TPLF ayaa sidii ay moodayeen noqon waayay dagaalku ayadoo dagaalku uu salbalaarsaday dawladaha caalamka ama caalamkuna uu si weyn isha ugu haya dagaalka ka socda waqooyiga dalka Itoobiya dawladda federaalka Itoobiya ayaa wacad waxay ku martay inay marnana isdibi doonin xoogga TPLF-na aan jaanis dambe u siinayno oo dalka Itoobiya ku sibaamulan hase yeeshee xoogga TPLF ayaa waxay ku andacoonayaan dagaalka danta ay kala yihiin inay tahay inuu Dr. Abiy Ahmed meesha ka tago ujeeddo kale oo ay leeyihiin ama Addis Ababa ay xiiso u qabaan oo kale tan una jirin ayagoo sheegay hadduu Dr. Abiy Ahmed meesha ka baxa xoogga TPLF inay ka huleelayaan deegaanada cusub ay ka qabsadeen gobolka Canfarta iyo Axmaarada ayagoo sheegay wixii wada hadal ama lala galay dalka Itoobiya intiisa kale ama dawladnimada Itoobiya lagaga tashanayo ayagoo magaalada Mekele ee caasimadda gobolka Tigreega jooga inay halkaasi fikradooda ka soo dhiiban doonaan hase yeeshee Dr. Abiy Ahmed ayaa waxaad moodaa inuu cagaha aastay asagoo sheegay inuuna marnana tarasuli doonin dagaalkana uu halkaasi ka sii wadi doono ilaa ay xoogga TPLF ay ka howlalaan dhulka ay qabsadeen Dr. Abiy Ahmed ayaa shuruud waxa uga dhigay xoogga TPLF inay ka baxaan dhulka ay haystaan dawladdiisana ay aqoonsadaan weerarada culus ee dawladda federaalka ku hayaana ay ka tanaasulaan hase yeeshee xoogga TPLF ayaa iyagu number 1 waxay saareen inuu Dr. Abiy Ahmed meesha ka tago magdhowna uu ka bixiyo waqooyiga dalka Itoobiya wixii ka baxay ayadoo marna suuragal ah inuu Dr. Abiy Ahmed arrintaas uu sameeyo waa sida ay sheegeen xogo hoose dagaalka u dhaxeeya xoogga TPLF iyo dawladda federaalka iyo duufaanada kale ee wehelinaya ayaa maalinba maalinka kasii dambeeya kasii daray ayadoo dhiladu maalin kasta ka yoodhayso dhul cusub oo dagaalku uu ka furmay xoogga TPLF ayaa maalinimadii shalaydu waxay shaaciyeen inay magaalada Mille ay istiraatiijiga gacantooda gashay hase yeeshee dawladda federaalka ayaa arrintaasi ku gacan saydhay ayadoo dagaalku sidii ka sii cuslaaday hase yeeshee warbaahinta madaxa bannaan ayaa waxay sheegaysaa xoogga TPLF markay suurta gali weeday
inay magaaladaasi gacantooda ay ku dhigeen ay propaganda badan ay media ku sii daayeen sidoo kale warbaahinta qarsoon ayaa waxa ay sheegaysaa inay xooga TPLF magaaladaasi hareerayeen magaaladaasina ay go'doon ku jirto ciidanka federaalka iyo ciidanka axfartuna ay gudaha ku sugan yihiin welina ay dagaal culus ka socdaan duleedka magaaladaasi sidoo kale ciidanka dowlad deegaanka Soomaalida ayaa habeennimadii xalay intooda badan loo daabulay jiito hore dagaalka ayadoo dowladda deegaanka Soomaalidu ay culays badan wajahayso dhaqaale iyo dhan kale tabaha iyo dhanka siyaasadda deegaanka Soomaalida ayaa waxay garwaaqsadeen inay TPLF dagaalmayaan wax kale kala hortagin ayagoo moodo inay taageero weyn ka haystaan dowladda saaxiib oo magacooda meesha lagu dhabin deegaanka Soomaalida ayaa dagaal culus ballan ku qaaday inuu ku la geli doono xooga TPLF ay soo habeennimadii xalay ilaa maanta ilaa waqtiyadan ciidanka deegaanka Soomaalidu ay ku sii qulqulayaan dhulka canfarta xadka uu leeyahay Soomaalida deegaanka canfarta ayaa dhulka haysta deegaanka Soomaalida halkaas ay kula dagaalamayaan xooga TPLF hadday u suurta gasho xooga TPLF inay gacanta dhulkaasi ku dhigaan ayaa deegaanka Soomaalida talaabada uu qaadi doona aan la garanayna asagoo deegaanka Soomaalidu wacad ku maray inuu xooga TPLF la dagaalami doono hadday xooga TPLF gacanta ku dhigaan dhulka ay canfarta Soomaalida ka haysato ayaa la garanaynin inuu deegaanka Soomaalida dhulkaasi ku dagaalami doono iyo inuu aqoonsan doono dhul ay canfari leedahay oo TPLFna halkaasi ay ka xidhan doonto dagaalka jiid hore deegaanka Soomaalida ayaa la filayaa hadday dhulkaasi ay gacanta u galaan xooga TPLF asagoo tixgelinayna canfarta dhulka ay hadda haysato inuu halkaasi weerar ku qaadi doono dagaal culusna uu dhaxmari doono ciidanka deegaanka Soomaalida iyo kuwa TPLF qodobada kalkeena ku maqli doontaana waxaa kamid ah jamhadda Ola ayaa waxay sheegtay dagaal xooggan ay ciidanka federaalka kula gashay gobolka Shawa in ay guulo waaweyn ka soo yeeday ayadoo sheegtay halkaasi inay cagta ku marsay ciidankii federaalka ugu yaraan 3 birgeedna ay gabi ahaanba burburisay sidoo kale jamhadda ayaa waxa ay sheegtay dhul aan magaalada Addis Ababa ka fogeyn inay ciidamadooda dagaal culus ka wadaan ciidanka federaalka halka ay dagaal kula jiraan ciidanka federaalkuna ay gabi ahaanba dhulkaasi iskaga huleeleen ay jamhadduna ku sii suqayso caasimadda Addis Ababa siyaasiyiinta madaxa bannaan iyo warbaahinta wax gorfaysa ayaa sheegaysa in xooga oo la kolo ayna u suurta gali karin ayagoon TPLF garab ka haysan inay magaalada Addis Ababa qabsadaan hase yeeshee dowladda federaalka ayaa wax culays ah kala kulmayn xooga Ola iyadoo caqabada koobaad ay noqotay xooga TPLF jamhaddan Ola oo barihii ugu dambeysay hog culus u gacanteeda galay caalamkuna uu aqoonsaday inay tahay jamaad aad u xoog badan ayaa dagaal culus ka wada gobolka Oromada iyadoo la soo sheegayo gobolka Oromada intiisa badanba inay jamhaddu gacanta ku hayso hase yeeshee dowladda federaalka ayaa qaylo dhaanta badan iyo culayska badan kala kulmay xooga TPLF maadaama xooga TPLF xooga aad u hubaysan aadna uga reey magaalada xooga Oromada sidoo kale baarlamaanka magaalada Addis Ababa ama ismaamulka magaalada Addis Ababa ayaa waxay ugu baaqeen shacabka magaalada Addis Ababa iyo shacabweynaha Itoobiya inay hubka qaataan iskana difaacaan xoogan mucaaradka isbahaysay ayagoo sheegay dowladnimadooda iyo wadajirka dalka Itoobiya in la ilaaliyo baarlamaanka ayaa waxay sheegeen dhalinyarada Itoobiyaanku waa in ay u istaagaan si ay ula dagaalamaan xooga mucaaradka wadajirka dalka Itoobiyana la ilaaliyo wax kasta oo kala qaybinta dalka Itoobiya wadana dagaal culus oo faraha laga gubtay la galo tan iyo kulanti dambo wacan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh